waxaan rabaa caawa kelmadeyda ugu dambaysa halka inaan ku bayaamiyo dawladda aan mas'uulka ka ahay khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba waxaan dadka reer Puntland u sheegayaa oo cod dheer ugu sheegayaa dawladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato niyad kororsi aan naguma jiro waan ognahay dibka uu leeyahay waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xawsan madaxweynuhu ma hadlaa la yiri maanta in la hadlo waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay sharciga la dhowro waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudda xisbiga noqday waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddii laga guulaysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono haddaadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynu ugu shaqeyno dalka nabadda loo daayo deganaanshaha laga wada shaqeeyo dadka yaan la marin habaabin dawladda tani waxay ku sifaysan tahay sarreynta sharciga ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhageysato waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuu rabin lagu jajoobo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan waxaan rajaynayaa xubnaha ururka doorashooyinka in si degdeg loo soo magacaabo dalka la jiheeyo 5 bilood oo dhiman waxaan waaye arag ku nahay 30 degmo oo baaxad weyn leh ayaa 5 bilood min diiwaan gelin ilaa doorasho ku qabanay way nagu filan tahay dadkeenana waa ku kalsoonnaa